Assalaamu calaykum. Waa barnaamijkeennii macluumaad kooban. Maanta barnaamijkeen waxaynu ku soo qaadanaynaa 8 macluumaad oo laga yaabo inay ka qarsoon yihiin ee daawasho wacan. Waddan samaysta kaneecada. Qof walba waa uu jecel yahay inuu dilo kaneecada. Si uu iskaga difaacana waxa uu isticmaalaa waxyaabo kala duwan sida sunta kaneecada. Sida aynu wada ognahay, kaneecadu waxa ay sababtaa cudurka loo yaqaan malaria, waana cudur ay sanadkii u dhintaan dad aad u fara badan. Balse waxaa jira waddan ka mid ah waddamada ku yaala koonfur bari ee qaaradda Aasiya, waana waddanka magaciisu uu yahay Singapore. Waddankan ayaa samaysta kaneecada labadeeda nooc ee dhadiga iyo labka. Maxay tahay sababta uu u samaysto kaneecada? Maadaama ay sababto cudur halis ah. Waddankan ayaa kaneecada waxa uu u samaystaa in uu kaga hortago cudurka malaariyada. Kaneecada uu waddankan samaysto ayaa ah kaneeco aan sidin wax cudur ah, oo waa kaneeco caafimaad qabta. Markii la sameeyo kaneecada ayaa lagu sii daayaa gudaha waddankan si ay kaneecooyinka caafimaadka qaba ula kulmaan kuwa kale ee cudurka sida. Haddii ay kaneecadahaas kulmaan, ayaa kaneecada caafimaadka qabta sii deynaysa kiimiko oo dhalaan ka dhigay kaneecada kale ee cudurka sida si aysan u dhalin wax ukumo ah. Waxaana waddankan kaneecadahaas u sameeya shirkad ku taala waddankaas, waxayna maalin walba sii deeyaan wax ka badan 5 milyan oo kaneeco ah si ay uga hortagaan cudurkan. Geedka loo yaqaan Snapdragon. Geedkan oo lagu magacaabo Snapdragon ayaa waxa uu ka baxaa qaaradda Yurub. Wuxuuna geedkan uu leeyahay waxyaabo cajiib ah ee uu kaga duwan yahay geedaha kale ee aynu naqaano. Geedkan ayaa waxa uu leeyahay ubax leh kalar kala duwan. Sidoo kale ubaxyadaas ayaa marka ay qalalaan u ekaanaya sida qof dhintay madaxii. Waana waxa ku tusaya awoodda Alle ee cajiibka ah. Sidoo kale waxaa jira geed lagu magacaabo Venus flytrap. Geedkan ayaa quuta qaar ka mid ah noololeyda xasharaadka ama noolayaasha yaryar oo ay ka mid yihiin caarcaarada, balanbaalista iyo kuwo kale oo badan. Wuxuuna geedkan ka baxaa dalka USA iyo qaybo ka mid ah qaaradda Ameerika. Wuxuuna geedkan ka soo muuqday filmo badan sida filimka Journey to the Center of the Earth. Tusita Ranasige waa nin u dhashay dalka Sri Lanka. Ninkan ayaa adduunka caan ka noqday kadib markii uu saxarada maroodiga ka sameeyay waraaqda wax lagu qorto. Waraaqadaha ayaa laga sameeyaa geedo kala duwan sida geedka spruce. Balse ninkan ayaa la imaaday fikrad ah inuu waraaqadaha ka sameeyo saxarada maroodiga. Maroodiga ayaa maalin waxa uu cunaa wax ka badan 50 kilogram oo cunto ah, isagoo sidoo kale saxarooda wax ka badan 16 jeer halkii maalin. Ninkan ayaa ka faa'iideystay fursaddan iyadoo markii ay dambe u hirgashay shirkadiisa samaysa buugaagta kana samaysa saxarada maroodiga. Ilaa maantana shirkadiisu waa ay shaqaysaa iyadoo u iibgeysa buugaagta ay samayso wax ka badan 30 waddan. Xayawaankan oo afka qalaad leej lagu yiraahdo ayaa waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay xayawaanada bini'aadamka muhiim u ah. Xayawaankan ayaa ah xayawaan ku noolaan kara badda iyo berigaba, waana xayawaan quuta dhiigga. Bani'aadamka ayaa dhiiggiisa waxa uu ku shaqeeyaa hab wareeg ah, wuxuuna xayawaankan uu waxtar u leeyahay kordhinta wareegga dhiigga iyo kala goynta xinjirowga dhiigga. Wuxuuna xayawaankan u dhuuqaa dhiigga xinjiroobay, midaas oo fududeynaysa in dhiigga aan xinjiroobin uu si fasiix ah ku maro xididada.
Marka la joogo dhanka caafimaadka, ma aan wax lala yaab in xayawaankan loo adeegsado daaweynta cudurrada wareegga dhiigga iyo xididada. Xajmiga xayawaankan ayaa waxay ku tiirsan tahay haddaba waxa uu cuno. Sidoo kale, xayawaankan ayaa waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay xayawaanada ugu maskaxda badan, isagoo leh 32 maskax. Biyo-degeenkii cajiibka ahaa waa goob ay biyo ka soo daadanayaan, balse biyaha ka soo daadanaya lama mid ah biyaha kale oo biyahan shaygii ay ku dhacaan ayaa waxay u beddelayaan adke ama dhagax. Waxay u muuqataa arrin been ah, balse waa mid xaqiiq ah, waxaana ceelkan lagu magacaabaa The Petrifying Well, wuxuuna ku yaalaa magaalo ka mid ah boqortooyada Ingiriiska. Arrinta cajiibka ah ee ceelkan ayaa ah in biyaha ceelkan ay wixii ay ku dhacaan ay u beddelayaan wax adka ah ama dhagax. Waana arrin cajiib ah oo ka yaabisay culimada sayniska. Ilaa hadda ma jiro qof fasiri kara dhacdadan yaabka badan, kaliya Ilaahay unbaa og. Laamaha yaryar ee mooska. Marka aynu doonayno inaynu cunno muuska, ayaa waxaynu ka fiiqnaa qolofka, kadibna waxaynu xagga hoose ku aragnaa laamo yaryar oo u dhexeeya mooska iyo qolofkiisa. Inta badan, laamahani waa la iska tuuraa iyada oo loo maleynaya inaysan wax faa'iido ah u lahayn, balse dhab ahaan waa laamo muhiim u ah caafimaadkeena iyo jidhkeena. Waxaana laamaan afka qalaad lagu dhahaa phloem bundles. Waa run oo dhadhankooda lama mid ahan dhadhanka muuska oo kale, balse waxaa laamaan laga helaa potassium, fiber, vitamin A, vitamin B6 iyo maadooyin kale oo badan. Haddii aad horaan u tuuri jirtay laamahan, waxaan kugula talinayaa inaadan tuurin oo aad la cunto mooska. Sidoo kale, laamahan ayaa caawiya mooska iyagoo u soo gudbinaya nafaqooyinka uu u baahan yahay. Tuuladii mataanaha. Tuuladan oo ku taala dalka Hindiya ayaa waxaa ka jirta arrin cajiib ah ilaa markii dambe loogu naanaysay tuuladii mataanaha. Waa tuulo ay ku dhashaan mataano aad u fara badan, waxaana degan tuuladan dad lagu qiyaasay 1,000 qof. Waxaana mataanaha tuuladan lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin 200 oo carruur ah oo mataano ah. Sanadkii 2016 ayaa qaar ka mid ah culimada sayniska booqdeen tuuladan si ay wax uga soo ogaadaan sababta keentay inay carruurta ku dhashay tuuladan ay u badan yihiin kuwo mataano ah, balse maysan soo helin wax jawaab ah. Sidoo kale, haddii qof ka mid ah tuuladan uu iskaga baxo oo meel kale uu u guuro, ayaa waxaa suurtagal ah inuu qofkaas u dhalo isla carruur mataano ah. Waxayna qaar ka mid ah culimada sayniska ay ku fasireen inay sabab u tahay kiimika ku dhex jirta biyaha laga cabo tuuladan. Haddii aad la yaabnayd tuuladii mataanaha, ogow inay jirto tuulo lagu magacaabo Kalachi oo loogu naanayso tuuladii hurdada. Waxayna tuuladan ku taalaa waddanka Kazakhstan. Tuuladan ayaa waxaa loogu naanaysay tuuladii hurdada maadaama dadka ku dhex sugan tuuladan ay ka cabanayaan hurdo aad u fara badan. Cudurkan ee hurdada ayaa markii ugu horeysay laga helay tuuladan sanadkii 2013, balse hal mar ayaa la waayay cudurkan, wuxuuna dib u soo ifbaxay dhammaadka sanadkii 2015. Dadka tuuladan ayaa sheegay in qofka isagoo aan dareemin wax caajis ah uu hal mar dhacaya uu sidaa ku hurdo saacado aad u fara badan. Waxay kale oo ay sheegeen marka qofka uu hurdada ka soo kaco uusan waxba xasuusan karin. Wuxuuna ilaa maanta cudurkan saameeyey 152 qof. Qaar ka mid ah dadyowgii deganaa tuuladan ayaa iskaga baxay magaaladan maadaama aysan awoodin inay ka shaqaystaan gudaha tuuladan.
iyaga oo ka cabanaya cudurka hurdada ee ka jira tuuladan gudaheeda.